صلاة واجب جماعين تكوجد تابانا في عناد جماعات كحاضرته إن أدت برينا واجب واد حوكسته ومضوا إن فايد صوصار تديراد إن صوصار تنا وحلو باهي هدي إنه دهنا ومضوا دمي هورديدو ورديجا هقاضته هورديدو هي أنت وغير اللغون نولان كرون مركب ساق بتفريسه ودتكم مركب يو علم يان دختر لبران أو يان فلك لبران أو يان حساب لبران أو يان هندسة لبران أو يان كيمستري لبران أو يان فيزيكس لبران وحاصل دمي وادون كفاني جابك تعلقات هي نتيجة ما حين قرصة وحصابة حيسا أمة لما أنت فقراء لما أنت جاهل كأن الله شأدون سيء ومامشه لما أنت بقطة ووحدة ويان لوهين يعني ضدك كدلنا الباراسايت سبا صباحية ضد بشرية كلا كدلنا وحلوبها هي وحويان واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم بالله وكيف تعد هذا جهل يبقين وضحيه كيف تعد هذا جهل يفقر وضحيه ساشي شويدين تلي وحويان مركا نوعا هدي الله نولاده حنون كافافا يعد ويسله هلي ماي جهل كافافا يعد نلاش هرو مرسله هلي ماي نلاش دنبا اسميسا مسلمين تي هوري waxay caanka ku ahaayeen ee dadka nitida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal mas'alada u dhigtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kala ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labada mas'ale ma isla fahmi karaysa shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneer ayuu haduu hilib yar oo shiilan cunayso oran jiray arma karikii aakhir ku idaariya idan ma yahay wax la'aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirtaan ay qiimo badan u sameeyeen inaga laba mushkila meesha taala dad badiyay aakhiran ku socona adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tii adduunyan raadacaynayna dabeetana adduunkan iska bidbidsanayna meelaha duulduul oo kolba siyaaxad iyo daar yar cagaaran iyo inta noloshaba inta moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay hayeen saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa hayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan le muntajiina marka ay noqoto conceptionna waxa hayeen dadka ugu yar juhdiga xaqiiqiga waa ka culama الحديث ركمده oo waaweyn oo salafkiyaba waxay oran jireen nin kamidaba wuxuu yiri ardadiisi isagoo la dardaarmaya waryaadeen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yiri idinka waxaan idin kula talinay inay xoogsadaan buu leeyahay inta yartiin xoolo dhaqda waa nin muxaddisiinta waaweyn ee la yaqaan kamida muxaddisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata ama se xadiiska ku xoogsada muxaddisiinta qaar baa jiray aan lacag ma haysanin dadana waxay oran jireen idin sheegmayna xadiiska idinka wax na siiyo mooyaan marka lacag la siiyay in xadiiska sheegi jireen marka ahlul xadiiska markay ka waramayaan ragay maagaan bay ku jiraan oo yiraahdaan xadiiskoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto wala professor banay wala ustaad banay wala waxa kan banay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd in wixiisana xoogsado cidina aanay u manna sheegan marka la dawlad wala shicib wala qofna aanu u manna sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheega hadana isagoo inuu dadka u manna sheegto cilmigiisa waa aakhira iyo ajar ku helo muuminka xaq ah marka waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sareeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo hadaa si la oranaya xoolaha badan la shaqeynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynu dhisay laana waayo waxaynu soo saarayba waynu ama muntajiin baynana ahayn ama mustahlikiin baynana labadubana waa waxa fiicnay muntij noqo mustahlikina noqon wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso oo horumariso westrankayn maanta joogna carruurteena islamic school baynu laana waxaynu ugu weynay ama waxbayna soo saarin oo caydaynu ugu filaatay ama waxaynu soo saaraynu liqnayo wala boobna labada goorba waa khasaareen taaganima waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'id kan baa loo baahay waxaan nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu Madiina yimay masaajidka dhisay saxaabadiisi wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nabigu u diray yaalaha yuhuud baa lahay yuhuudda la booba nolosha la xoogsada lala meeshu lahaa Abdurrahman ibn Afdulluna ala suuq wa suuq al-yahud suuq banu Qaynuqaa baa la geeyay meel kale lama geeynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la idibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bil aakhirah adduunku aakhirah xidhiidhku la leeyahay waa maxay xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa طريقي aakhira loo marayay haday cibaado tahay nolosha dhan buu cibaado warka xoogsiga xalaasha ay cibaadadu kamidi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu kamidi kafaafka aad noloshaada adigu dabari kartaa cibaadaday kamidtay bariyado aad iska dayso ar social wax weydiisanay cibaadaday kamidtay inaad isku fillataa cibaadaday kamidtay qofka muslimkii inuu noqdo model lagu daydo cibaadaday kamidtay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday kamidtay in marka tusaale la soo qaadanayo aad adigu noqoto qofka modelka xumaha loo qaatay ciida ku nool diin yariday kamidtay bal dadkii aan rabay inaynu model u noqono
noqono hadday iyagii adiga ku yasaan waa diin yari haddaynu inagu noqono dadka diinta ka hortaagan idan waxaan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yu qalbigaaga geli adduunkuna ha noqdo طريق آخر lagu gaadho wallahu a'lamu billahi tawfiq. Assalamu alaykum.